عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta muuqaalkan kaga hadnaa taariikhda mid ka mid ah suldaanada soo maray saldanadii mamaaligta ee ka tirin jirtay Masar iyo Shaam. Haddaba haddaad nagu cusub tahay subscribe saar oo nagu soo biir. magaciisa oo dhammaystiran waa Ruknuddin Bebres al-Bandaqdaari waxaanu xukunka mamaaligta dowladda Bahrayn qabtay sanadkii 658 hijriga. waxaa masarkiisu ka soo jeeday dhulka Qabjaaqa waa dhulka ka tirsan dowladda Qazaaq taasoo ka tirin jirtay dhulweynaha Kazakhstan intii u dhaxaysay 1460 miilaadiga ilaa 1847 waxaanu ahaa doon waxaan yaraantiisii bisaynin inuu magacaabo jaamacad Duwaaye inta kadib wuxuu ka sii iibiyay amiir lagu magacaabo Jalaaluddin al-Bandaqdaari oo amiirka xamaha ku taala Suuriya. waxaa la oran karaa waa tarbiyadaha dhabta ee Bebres. inta kadib wuxuu mulkiisu ku wareegay suldaanka Saalix Najmuddin al-Ayyubi. inta kadib wuxuu xoriyay waxaanu ka mid noqday mamaaligta suldaanka lagu magacaabi jiray Mamaaligul Bahri. waxaanu ku caan baxay geesinimada dagaalyahanimo. waxaanu ka qaatay dagaalkii Faransiga lagu jabiyay ee ka dhacay Mansuura waqtigii sultaan Turan Shah iyo sidoo kale labadii dagaal ee lagu tarbiyay Maagulka ee ka kala dhacay labada goobood ee Cayn Jaaluud iyo Baysaan. labada dagaal lagu jabiyay tartaarka waqtigii Sayfuddin Qudus. sidoo kale Bebres wuxuu ka qaatay dhowr shirqool oo ka mid ah shirqoolkii xilka lagaga tuuray Izzuddin Obek. waxaana shirqoolka u wada qaaday isaga iyo Faris laakiin nasiib darro shirqoolkaasi wuu fashilmay waxaana la dilay Farisuddin halka Bebresna uu baxsaday dhulka Shaam. waxaanu Masar dib u soo noqday kadib markii uu xukunka gacanta ku dhigay Sayfuddin Qudus. Sayfuddin Qudusna wuxuu ka dhigay generaalka ciidanka maadaama saaxiibo ahaayeen. waxaana la sheegay inuu sidoo kale u ballan qaaday inuu dhiibi doono maamulka Xalab. waxaana sidaa qoray kitaabka uu qoray Maxamed Shilbi ee Xayaatu Maalik Daahir Bebres. waxaanu 32 ku sheegayaa in Bebres uu isagu diray Qudus kadib markii Qudus uu ku noqday go'aankiisii ahaa inuu Xalab u dhiibo. Bebres waxay taariikhdan ku tilmaamaan inuu yahay aasaasaha dhabta ee mamaaligta iyadoo loo eegay caqabadii uu ka gudbay. waxaana sanadkii u horeysay xilka uu qabtay ka falagay amiirka Shaam kaasoo iskiis ugu sharaxay inuu yahay suldaanka Shaam isagoo Saliibiyiinta Shaam oo faragelin ku waday dowladda isagoo hadhaga tartaarka u soo guurtay xagga Shaam isagoo kale isku day dil ah oo qorsheynaya mamaaligta Izzuddin Obek. iyagoo waxaasi wax ka badanba jiraan ayuu kursiga ku fadhiistay. waxaa markii horeysay fashilay shirqoolkii dilka ahaa. waxaanu 1226 cagta mariyay hadhaga tartaarka. waxaanu 1268 ku soo celiyay gacanta Islaamka Antakiya oo gacanta ku hayeen Saliibiyiintu. waxaa intaa kadib la galay heshiis iyo ka baqanay inuu Shaam oo dhan ka saaro. isagoo wuxuu gacanta ku dhigay magaalooyin ka mid ahaayeen Ximis, Akraad, Bilaad sida Shaqiif, Cukaay, Yaafa iyo qaar kale oo badan. waxaanu 1226 ka furay madrasada uu magac daray Taahira. waxaanu dib u cusboonaysay qalcadii magaalooyinka. waxaanu horumariyay sistemka boostada. waxaanu hagaajiyay Azhar iyo Sawqi Masjid an-Nabawi iyo Qudus. waxaanu asaasay Daarul Fiqh ay fadhiyaan 4 madhab ee ahlu sunnuhu. Bebres wuxuu maamulay dowladda 17 sano. waxaanu dhintay 636 hijriga. waxaana lagu aasay maktabada Daahiriya oo ku taala Dimashq. intaas ayuu soo go'ay taariikhda الملك الظاهر ببرس البندقداري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.